saddexda uu necab yahayna waa saddexdee waa nin ganacsada ah oo ganacsigiisa dhaar ku socodsiiya ya wallahi inay inta igu fadhida wallahi billahi inaan inta ku soo iibi wallahi inaan inta kaaga gaday wallahi kala daa ganacsiga ilaahay magaciisu waa qaali tabaaraka wa taala magaca alla meeshan ma galo at-taajir al-halaaf taajir ka ganacsadaha dhaarta badan ninka labaadna waxa way al-faqir al-mukhtal al-faqir al-mukhtal waa nin faqir waxba haysan ruuxan waxba haysanin hadana kibraaniya war maxaad u kibri wixii loo kibraha ma haysidee ya ninkii xoolo haysto wuxuu ku saaysta inuu yaraki kibraay asbaabtii ku bixin lahayd nacasima baa ku jirtee laakiin asbaab baa jirta war adigan faqiirkee dabada qaawan hadan maxaad isla qaadiyad u kibri sidana abu taala yani waxay tilmaamaysaa dadnimo xumo ku jirta waa yani xumaanta lafaha kaga jirta ninka saddexaad ee ilaahay nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam al-bakhil al-mannan waa nin bakhayl oo gacan adag haddana galladaysi badan wax ma bixiyo in wax laga soo saaray sida Soomaalidu yiraahdeen in gacmaha laga garaaco mooyaan si kale wax looga ma qaado haddana maca dalika wixii yarka ahaa silica kaga baxay oo silica laga qaaday ayuu haddana ku gallad sheeganay soonigi wax ku taray ma ahayn soonigi maal hebel wax ku siiyay soonigi maal hebel waxaas wax ku taray manni iyo gallad buu ka daba daynaynin oo xogaaga yaraay silica kaga baxay saddexda ilaahay waa nacab yahay